warwa fanaanki weynaaye Khalid Roobo oo halkana si kadis ugu aragnay magaalada Hargeysa diideen oo meher halkan inaad ka qayb gashaan loo sheegay bal Khalid soo dhawow dadkuna warkaaga way xiiseenayaan horta dani horta waxaan kamid ahaa fanaaniintii Dayaxbaan soo aasaasay laakiin waxa isku ka dambeysay markii uu daahagaas uu mushaharkiiga goostay daaha wuxuu ku doodayaa in markaad u imanaysay aanad haba yaraatay aqoon deegaankaad ka soo jeeday taa ma la dhihi karaa shakhsiyadaada inuu aflagaado u geystay daaha anigu waxaan ahay nin ka soo jeeda waxa weeyaan deegaanka Isxaaq ka soo jeeda baan ahay inaad bari kartay reerkiisana ma yihi daaha dad baa eedeynaya oo waxay ku eedeynayaan in uu qaraabakiil sameeyay oo fanaaniinta ay isku deegaanka hoose yihiin uu ka soo dhaweystay fanaaniinta kale adiga taa ma ku waa shakhsiyadiisu waxa weeyaan waa shakhsiyad aad u liidata baan leeyahay waxa weeyaan fanaaniinta kooxdana waa nin kala jeclaysta kooxdana waxaanu ku jirnay anigu bilowgii ku aasaasnay aniga inaan kale Isxaaq inta kale oo dhan reerkiisa ahayd baan leeyahay waxa leedahay kooxdu markay xoogeysatay ayaa aniga iyo inantii kale deegaanada kale ka soo jeeday ayaa la inaga saaray mushaharka waxaan qaadan 3 bilood baan ka qaadan waxaan leeyahay daahow mushaharkayga wad goosatay si bareeraanad iga goosatay oo cadaana imikana waxaan ku leeyahay mushaharkayga anaa kaaga tagay iyo kooxdiiba hadduu adiga wax ku taray hayso warwa fanaanki weynaaye Khalid Roobo oo halkana si kadis ugu aragnay magaalada Hargeysa diideen oo meher halkan inaad ka qayb gashaan loo sheegay bal Khalid soo dhawow dadkuna warkaaga way xiiseenayaan horta adiga daaha bal xaalkiinu halka uu ka bilowday hadda halku marayo bal warna sidii Dayaxbaan halkiisu ka dambeysay wallahi aniga iyo Dayaxbaan waxa isku ka dambeysay dani horta waxaan kamid ahaa fanaaniintii Dayaxbaan soo aasaasay laakiin waxa isku ka dambeysay markii uu daahagaas uu mushaharkiiga goostay ayaa Dayaxbaan isku ka dambeysay xasabinu mushaharka ka goostay wallahi ma garanayo isaga la weydiin doonaa taas laakiin mushaharkii uu iga goostay waliba isagoo si qaldan iga goostay mushaharkaas marka wax sabab maxaa keeni karaa adigu istiri inuu mushaharka ka goosto ma nidaam nooc ma niyow wallahi ma garanayo laakiin su'aasha isaga la weydiin doonaa marka adigii daaha ma khilaaf bay idinka dhaxay ma waxba naga dhaxayn daaha oo hadlay waxa uu sheegay in haybta aad ka soo jeedo iyo deegaanka aad ka soo jeedaba iyo cidda aad tahay inuu isagu ku baray bal adigu taas u aragta hadalka hadalkaasi waa hadal waxa weeyaan ummaduna aanay qaadanahayn oo ma garanaysaa hadalkaasi waa hadal been ah anigana daahagaas kii baray waxaan ku fanaanimadayda baray ayaaba hadda haybtaan ka soo jeedo nin Isxaaq ahaa marka daaho waxaan leeyahay beenta iska daani weyn baatay marka adigu waxa leedahay deegaanka aan ka soo jeedo daaha ima barin daaha wuxuu ku doodayaa in markaad u imanaysay aanad haba yaraatay aqoon deegaankaad ka soo jeeday taa ma la dhihi karaa shakhsiyadaada inuu aflagaado u geystay daaha aad iyo aad buu u geystay waayo aniga waxaan ahay nin waxaan ahay nin aabayaashii iyo awooyaashii ku abtirsada ma garatay marka taa fadaaxad iyo caab ayuunbay igu tahay aniga meehidani la oran karo reerkaad ka soo jeeday baan ku baray daaha anigu waxaan ahay nin ka soo jeeda waxa weeyaan deegaanka Isxaaq ka soo jeeda baan ahay inaad bari kartay reerkiisana ma yihi ehelkayga ayaanay baray Isxaaq adigu imaad bari ma leeyahay ugu dambeyntii Khalidow dadku Dayaxbaan dadku siyaabo kala duwan bay uga hadleen oo maalmihii ay soo baxday heestan ay ku sheegeen xabashi iyo amxaar waxa iiga dhow Soomaali iyo Muqdisho iyo reer Garowe amxaar baa iiga dhow adiga Dayaxbaantii aad shalay taqaanay iyo hadda maxay kugu kala duwan yihiin wallahi hawshaas inaan galama doonayo Dayaxbaan waxa weeyaan fanaaniintii kooxdana inay heesahoodii ay bartii ka sii wataan weeyaan laakiin waxaan lahaa amxaar inoogama dhowa ma garanaysaa dad Soomaaliya waayo maanta haddaad ka tagto wadankaaga ood meel kala tagto ood u baahataba caawimaad qofka ugu horeeya ma garanaysaa haddaad caawimaadda ka dalbanaysa waa qof Soomaaliya marka dadka Soomaalida baan oranayaa wax iskaga dhow ma jiraan taasaan leeyahay daaha waxaad sheegtay inuu mushaharka ka goostay imsa bilood baanad mushahar ka qaadan kooxda Dayaxbaan mushaharka waxaan qaadan 3 bilood baan ka qaadan waxaan leeyahay daahow mushaharkayga wad goosatay si bareeraanad iga goosatay oo cadaana imikana waxaan ku leeyahay mushaharkayga anaa kaaga tagay iyo kooxdiiba hadduu adiga wax ku taray hayso intaas daaha shakhsiyadiisa dadka aan aqoon maanta baranaya maxaad leedahay waa shakhsiyadiisu waxa weeyaan waa shakhsiyad aad u liidata baan leeyahay waxa weeyaan fanaaniinta kooxdana waa nin kala jeclaysta aniga waxa jirta heeso badan oo ma garanaysaa intuu u dhiibay oo haddana fanaaniin kale oo ma garanaysaa uu sii dhiibay marka waxaan leeyahay daahow fanku
waxa weeyaan dee qaabkan aad u wadeed kolba qof soo jawaabaysay iyo maaha waxa weeyaan dee fanaannimadaada iska joogo dadkan aad u soo jawaabaysay iyo waxaan aad ku dhex jirta iskaga baxbanala ugu dambayntii Khalid dhacdooyinkii ugu la yaabka badnaa ee intaad kooxda ku jirta adiga daaha idin kala qabsaday maxaa kamid ahaa oo nooga sheegi kartaa dhacdooyinkii adigii daaha keenay inaad ku kala tagtaanba oo idin kala qabsaday gudoomiyahaagina waa ki ahaaye maxaad nooga sheegi kartaa niyow wallaahi anigu garan maayo dee wax ma garanaysaa dee xumaantaa oona dhex taalay laakiin waxaan ogahay ninkaas dee inuu ma garanaysaa dee mushaharkaa inuu uga goosto isagu badheeray uman ogahay ugu dambayntii daaha dad baa eedeynaya oo waxay ku eedeynayaan in uu qaraabakiil sameeyey oo fanaaniinta ay isku deegaanka hoose yihiin uu ka soo dhaweystay fanaaniinta kale adiga taa ma kuu muuqatay aad iyo aad weeyaan waxa weeyaan dee fanaaniinta kooxda u badnayd ba reerkiisa ahayd baan odhanaya anigu kooxdana dee waxaabanu ku jirnayba anigu bilowgii ku aasaasnayba anigiiyo inan kale oo isxaaq ah inta kale oo dhanna reerkiisa ahayd baan leeyahay dee inay kooxduna ma garanaysa reerkiisa u badan tahay anigu waxba tirin maayo fanaaniinta laakiin taasi waa caddahay taas marka waxaad leedahay kooxdu markay xoogeysatay ayaa anigiiyo inantii kale deegaanada kale ka soo jeeday ayaa laynaga saaray inantaasi markii horeba iyadaa iskaga tagtay oo waxaan ku idhi dee kooxda iskaga baxday laakiin waxa weeyaan imanka daahagaas dee odhan maayo isagaa iga saaray laakiin isagaa mushaharkii iga goostay laakiin waxaan leeyahay imanka anaa kaaga tegey oo kaaga baxay mushaharkiina hadduu adiga wax kuu taraya iska qaada ma leeyahay ku cadeeyay sababta uu mushaharka kaaga goostay may kuma caddayn laakiin daaha oo hore u hadlay waxa uu sheegay in deegaankaad ka soo jeedo ay u badan yihiinba fanaaniinta kooxdiisa adiga hadalkaa maxaa kaaga baxay waa beenta hadalkaas anigu fanaan baan ahay kooxdana waan ka tirsanaa hadalkaasna waxba kama jiraan waa been ugu dambayntii fariinta u dambeysa ee halkan aad uga diraysa maxay tahay qaybaha kala duwan ee bulshada reer Soomaaliland iyo dadka adiga fankaaga taageersan dad badan ba hadalkani marka uu soo baxay ay fajiciso ku noqotay dadka fankaaga taageersan iyo sida oo kale dadka wada qabyaalada fanka way noogeen fanko siyaasad iyo qabyaalad ka mamnuuc bay ahayd imanka baashiiba way noqotay maxaad u diraysaa horta waxaan leeyahay niyow qabyaalada sideedaba iska daaya qabyaaladu waa shay aad u xun waxa weeyaan fankuna qabyaalad waxa weeyaan dee uma baahna fanku waxa weeyaan qofka fanaankii waxa uu fanaan yahay ummadda oo dhan ninka abwaankiina waxa weeyaan dee inagu hore umaynaan arki jirin laakiin waa imanka mid inagu cusub weeyaan waxaan odhan lahaa markaa fanka qabyaalada ha laga daayo bulshada anigay taageertana dee aad iyo aad baan u salaamaya waxaan leeyahay aad baa ugu mahadsantihiin taageeriin maxaad uga jeedaa abwaan hore umaynaan arki jirin dee yacni abwaan hore oo dee sameeyo koox qabyaaladaysan maynaan arki jirin dee laakiin imanka weeyaan dee arrintaas marka daahagaas baad uga jeedaa aad baad u mahadsantahay Khalid